waa idin salaamay dhamaantiina magacaygu waa Ibrahim Aadam ku soo dhaw channelkayga oo subscribe isar waad mahadsantahay waxaa jira saddex waxyaabood oo sun ku ah nolosha qofka iyo farxadiisa noloshu waxay leedahay caqabado fara badan oo u baahan in xikmad dulqaad aqoon iyo talo loo gudbo hal adeega iyo dhiiranaantu waxa ay kamid yihiin furayaasha muhiimka u ah nolosha ee qofku waxyaabo badan kaga bedeli karo gaar ahaan xilligan aynu ku jirno oo dunidu ku sii badanayso xaasidnimada iyo isduufsiga waxa aynu muuqaalkan ugu wadaagi doonaa saddex arimood oo hadii qofku caadeysto ay ku adkaanayso in uu ka gudbo duruufaha adag ee nolosha iyo in uu iskii u dhisto nolol xalaal ah oo qurux badan naftiisuna raali ku tahay arinka koowaad naftaada oo aad dadka kale barbar dhigto dad badan ayaa ay caado u tahay in markasta oo ay naftooda ka fikiraan ay barbar dhigaan naf kale hadii ay tahay shaqada saaxiibtinimada iyo nolosha caadiga ahba markasta oo uu horumar iyo in uu naftiisa dhiso ka fikiro waxa uu xasuustaa cid uu isleeyahay way ka nolol fiican tahay laakiin waxa ay khuburada cilmu nafsigu sheegeen in ay taasi bilow u tahay burburka nolosha oo uu qofku aakhirka aaminayo in uu san gaari karin nolosha uu hiigsanayo waxa waajib ah in uu qofku xasuusto in laba qof kasta ay kala duwan yihiin qof kastana uu nooc gaar ah yahay sida awgeed wanaaga uu qofka gaadho iyo xumaanta soo wajahdaaba ay qofkaas ku gaar yihiin arinka labaad dadka hadalkooda oo lagu gubto dad badan ayaa ay dabeecad u tahay in ay ciriiri iyo caro ay isku madax maraan markii ay cidi naqdi kala hortimaado waxa muhiim ah in markii uu qof dhibaato ku geysto in marka uu naqdi qof kale kaaga yimaado in markaaba aad nafta u sheegto in ay jirto daldaloolyo oo qofkan lagana yaabo in uu kaliya u jeedo in uu ku saxo ama uu ku qurxiyo hadii xitaa xumaan ay ka tahay naqdigaas waxaad u qaadataa darsi aad ku saxdo qalad aad leedahay oo hadii aan lagu caayi lahayn abidkii sii socon lahaa taladu waa in aadan dhibsan isla markaana iska dhaga tirin dhaleecaynta cid kale kaaga imaanaysa xitaa hadii aanay kula muuqan mid nasteexa ah hadii aad u aragto in dhaliishaasi ay tahay mid aan jirin ha isku mashquulin qofkan kugu sheegay oo u arag in uu yahay qof buka oo ka xun wanaagaaga waxa aadna ku dadaa in dadka aan isaga ahayn aad si ficil oo dadban ugu muujiso in naqdigaasi aanu run ahayn aakhirka dadku waxay diidi doonaan in ay tiisa rumaystaan qodobka saddexaad hadii aadan iska xakameeynin saameynta hadalka dadku ku yeelanayo fikirkaaga halis ayaad ku jirtaa waxaa jira dad badan oo hadallada dadku ay si sahal ah saameyn ugu yeeshaan taasina waa dariiqa ugu khatarta badan oo qofkaasi aakhirka buhol dheer biyo ugu shubaya dad badan ayaa aftahan ah xigmad badan si aad u qurux badan doonistooda iyo fikirkooda kugu gelin kara ama kaaga dhaadhicin kara markasta oo cid fikir wadata aad dhageysanayso ku dadaal in aad marka hore naftaada xakameyn karto si aanay dhaqso qofkaas isaga dabagelin ugu yaraan naftaada ku tababar in mowduuca laga hadlayo ay dhageysato kadibna inta aad dib isugu noqoto ka fikirto soo baadho kadibna aad dib ka qaadato fikirkaasi ama aad iska diido sida awgeed isla marka fikirkaasi lagu soo bandhigo iska jir in aad hore ka qaadato si aan caadifadaada looga faa'iideysan waxaan jeclaystay in aan saddexdaasi qodob idila wadaago waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waxaan ku leeyahay ku raaxayso noloshaada peace